بابور كان ينكوي مهاي باليابي با أدير باورك ما يودي يونس ها يونس ودد وليب ما يودي ألعاب سدان ملايو warwaan idin salaamay oday suldaan iyo saadiqow warrama seetihiin waan kaa qaadnay yunis oo soo dhawow alaabtii ayaan idin wadaa oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ah kaariya la dega ma ayin alaabtan inshaantii yunisow waxaan idin keenay teendhooyinkii iyo wixii kale la halmaala kaaliya qaat waan gartay eedaan mahadsanta waaba hadal lagu farxo teendhooyinka aad noo keentay haa waad farxi doontaan waxaad yeeshaan suldaan teendhooyinka gaariga kala soo dega waa agab aad u fiican waxaana loogu talagalay dadka barakacayaasha ah waan filayaa inay aad u wada farxi doonaan saadaq wali unweerasa dadka teendhooyinka dejiyaayan haye adeer hadda ay hadejiyaan diyaaru dadka oo geegi dhan adiga sugaayeen roor in sheeg hadejiyana teendhooyinka tahliil iyo diiriye iyo baniinkooyen iyoon caawiyaayan waayahay waa khayre assalaamu calaykum adu suldaan iyo saadiq وعليكم السلام ما شاء الله ما أنت جوي أوكي واي أد أيالو ذا فرحسين سيدان دريمي ما أنت تندوين أيال إذن كيني حردا ها رنتو تندوين كان يونسان إنشاني حدي إيانا دسانا إيد إيانك باهنا إني بريال كان وابا غير هدي أديشين وابا أرين وناكسن كودها أنا كانوا أدل دسين أدر سلطانو بلهوش نقلي إيد يا ماسنتين diiriye iyo tahliil ma ibul kulanteen teendhooyinka isla hadlishani صادق dadka higga dhigan teendhooyinka aan sheek roor ee ada si degan inka qiibi hadda warkooya hadda teendhooyinka way qiibiye suga tartiib isdajiya nin qiibiye walaa un iska leh suga ما شاء الله وإلهي مهديس دتكن ويكو فرح دونان باهي آد وين بي أقبين ألابت لكيني كو هالكاس يا لميع ها waa teendhooyinkan loo keenay waxaa halkaas yaal diiriyo qalabkan iyo alaabtan waa kuwo tayo aad u sarreeya leh oo in anfici doon oo ay dadku aad u jecel yihiin waxaana filayaa ama aan rajaynayaa in ay noqon doonto alaab aad u adag oo ay dadku u wada riyaaqi doonaan insha allah ballan eego soo kuwan maaha waa teendhooyinkan loo keenay war bal sug bal sug saadiqo u kaadi meeshan maxaa ku qoran yah waaba yaaba maxaa ku qoran meeshan yaa maxaa ku qoran tahliil war bal u kaadiye niman yahow meeshan waxaaba teendhada dusheeda sare ku qoran calaamadda hay-ad caalami ah waa sidee xaalkan waxba ma fahmin anige yah see wax u jiraanna astaantan waan garanayaa niyow weliba waa hay-ado aan aqaano maxaa qaldanna see wax u jiraan alaabtan xaggee laga keenay yah macquul maba ahan arrintaani war ila fiiriya bal meeshan war saaxiib isdeji waxaas waxba kama jiraane niman yahow dhegaysta dadka walaacaha laga daayo waayo wax walba way isku ekaan karaan maxay tahay shabadda iyo waxyaalaha aad ka hadlaysaan war waxaas waxba kama jiraane alaabta la dega war maya yooniso u kaadiniyahow waraa yoonisow war u kaadiniyo waxaas ma jiraan u kaadiniyahow waatana astaanta calaamadda walaacaad sheegaysa muxuu yahay soo ma jeediniyo way ku taallaahay tahliil jooji waxyaalaha aad ka hadlaysid hay-ad shuqul kuma lahan alaabtan aniga ayaa keenay anaana kaa hubo cid kaaga dawa imaanaysa ma lahan kadaa dadka walaacayo oo walbaharkaad ku haysid caadi iska dhig saaxiib macan war niyo bal amuurtaan eega war walaalow indhahana tiriniyo annaga kowdhe waan u jeednaa calaamadaha hay-adda ee ku sawiran niyo maxaa kaa qaldan teendhooyinkan waan u jeednaa waan aragnaa wax qarsoon maahane niyo say wax u wadaa yoonisow tahliil waxaan waa un iska xayeysiin aduu nin reer magaal midtiid miya hay-ad shaqo kuma lahan alaabtan war i rumayso alaabtan aniga ayaa juhdii dadaal ku bixiyey anaana keenay cid dambe ood uga cabsi qabtidna ma lahan war bal amuurtan kaalay eega maxaa hay-ad iyo xayeysiin isu keenay niyahow war yaa ilaahay yaqaan hay-addu waxay iyaga leeyihiin unbay ku qortaan calaamadooda sida caadiga oo ay ku daabacaan waxaas waan ognahay niyahow ma sidaan ogeyn baa laga beddelay macnaha wax maa isbeddel macnaha maxaa qaldan yunis waxaan rabaa inaan ku weydiiyo asalaamu calaykum oday suldaanow wacalaykum salaam waraxma kabtan bilaal soo dhowow nasre ayaaba kula socotee haa adeer suldaan kabtan bilaal ayaan la socday ee iska warama idinka waa nabad gabadhaydii waan fiicannahay nasro aadaan u fiicannahay ee soo dhowaada meeshaan ayaan rabnay inaan teendhooyin ku dhisno yoonisow waxaad ii sheegtaa sababta filsan aad alaabta ugu geysay weliba aad uga iibisay aniga war waxaas maanay miihi waxna kama ogi shuqulna kuma lihi yuunisow weli ku weydiiye teendhooyinkan takishanti bal nin sheeg meelaad kishanti yaa bugnoon haddaay tibi inaan ku weydiiyo fadaay laakiin walha oo dhaggali sheeg meelaad kishanti alaabtan war waxaan aad ka hadlaysaan ma garanay meelaan ka keenay yuunisow yunis ma oshiidi miya in qoysaska bogtaalle ee aad alaabtiyo gadati in binaanyaalan ayin iriida maalanti iyo qabowka hamiinkii jar ee zaa'idka
saasaatow beryaalkan raashin laan xitaa haayeen ma walaaqsan hayna wal eedlan ku xumaad inaad alaabtiyo gadad waa nasiib daro weyn way taas inaad samayto mahayna taas waxaan aniga shuqul kuma lihi su'aasha aan ku weydiiyey iiga jawaab keliya ayaan ku dhahay alaabada filson maxaad ugu geysay ayaan ku leeyahay oo aad igu iibisay wax kale oo jawaab ha isiinin kabtan bilaal aniga alaabtan wax shaqee kuma lihi waan ku idhi horin waan kuugu sheegay haddana waan kuu sheegayaa kabtan bilaalow iga daa ciyaarta waxaan wax aniga dantayda ah ma ahan anigana uma keenin dadkan shuqulna kuma lihi maba aragba yuuniso waxaad ii raacaysaa saldhigga booliiska si lagu weydiiyo su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan arrintan ee ina keen fadlan waxaan idin sheegayaa adeer suldaan teendhooyinkan in aan la taaban waxaan wargelinaynaa hay'adda raagow warraagow war qofkaas ma adeer warsamaa war adeer waa i garata miyaa war adeer waa i garata wallaahi ii warran adeer ma adigaaba iga lumayaba aabbaha oo halkan taagan ayaad noqotay allah isu ekaa waa koobigiisii yaa war bal warran warkaaga keen fiican adeer macaan maasha allah bal ii waran oo adigaga waran oo xaaladda reerka ka waran oo qaraabada ka waran oo soo lama ladna adeer macaan adeer annagu waa ladannaha ilaahay mahadi iyo barwaaqaan qabnaa dareen ma jiro meeshaan baan ku dhaqannaha ilaahay waa nugu barwaaqeeyey reerkuna waa ladan yahay bal carrigii ka warran see lagu ahaa adeer macaan waa la nabad qabaayo alxamdulilaahi balaayo ma jirto kow dheh maxay ahayd toole waana dhag xaalku ma fahamtay aad iyo aad farxadeena ii tahay inaan is aragna adeer aad iyo aad maasha allah waa khayr adeer dadkaanu isku asaaga ahayn iyo waxaan adeerka u ahaayo dee dan baana soo kala wadaye walla qalbigayga ku nool yihiin geedkan ayaan galabkii marmar aniga iyo odayaal saaxiibadayu fadhiisanaa bal xaggaan noo soo leexi duqowdii baan halkaan ku sugayey halkaan aan ku yara nasanne mahadsanid adeer warsame mahadsanid waa dhowaha adeer waxaan ku weydiiyey ninka la yidhaha raagow horta waxaad iiga warrantaa ninkii mayrana ah ninkii mayranaha ma jooga carrigii mise waa ka tegey bal ninkaa iiga warran ninkaas xusuus gaara ayuu igu leeyay si khaas ah baan aniga saaxiibba u nahay rag isla soo jabay baan naha ma garat aad iyo aad adeer macaana aad iyo aad ninkii mayrana wuu joogaa adeer koo dheh nin wuu shaqaynayaa wuu iska nabad qabaa odayga waa weli wuu nool yahayoo odayga malag ismaaciil maysa arkin ma fahamti malag wakhtigiisuu iska imaanaya ilaahay qaatumada ha noo suubiyo yaa wakhti dheer baan ismoognaha aniga adigu waxbana ismaada bedelin hadde sidaadii baad wiil yaroo gabana siday u taha maasha allah yaa aabbahana walle aad baad ugu ekaatay yaa odagiyo meesha taagan baad noqotay war adeer macaane adeer adiga xataa sidaadii ayaa tahay kow dheh warnimo adeeroo waa sii yaraanay sirta maa ii sheegtid oo wiil yaraa sii noqotay yaa adeer adiga xataa amaa gabar yar kuu guurinaayo oo wax kuuraa raadiyaa gabar ah wariga tag raago xaajiyadda ha igu dirin laa ilaaha wuxuu yidhi gabar yar war xaajiyadda ha igu dirin harkaa iga bixina iga daa war adeer waa caadi adeer macaan haddaa xishoonin adeer xusuustaada inaan soo celinaa rabnaayo oo raggii geel wuu dhaamin jiray alaabti ahayd inaad dhahdid wareedhe waxaan ku yidhi xaajiyaddan cidna lama siisan kare iga daayo gabdhahan yaryarkaa jaflahooda iyo qoorsagaaradooda waxaan ku yidhi reerka ma u sheegtay safarkaaga markaad soo baxaysay oo aad soo aadaysa xaggan iyo isku filan mise waa iska soo dhuumatay oo cidna adoon u sheegin baad iska soo baxday adeer ha sheegin arrinta sir baa ii aheedoo cidna umaanan sheegin waa iska soo baxay marka arrintan dhammeeya kadib ayaan sheegayaa safarkayga iyo waxa aan u soo baxee bal hadda waa anaa iswado waa iska soo baxa adeer walla inuu ninkii ku bannaan yaa waa runta si fiican baad yeeshay adeer waana kugu raacsan haddaad aniga ila tashan lahaydna saasaaba ku odhan laha habeenkii wayba iga hoos baxday oo xaajiyadduna waa ii dhoweyday saasaaba rabay inaan ku idhaahdo markaad soo baxayso keligaa soo siibo aad iyo aad adeer macaana aad iyo aad adeer horta eedda marwa ma fiican tahay iiga waran bal arrintan guurkan wax ma ka og tahay oo gabadha nasraa ah ila rabtid mise waa sheeko adiga kuu gaar aho adeer oo sir ku ah way og tahay xaajiyaddu wax walba waa la socotaa ma habeenkii markaan sheekaysanayna webi ila joogtayba labadeennaan ahayn wax walba way la socotaa yaa maamooyinka ma aragtay waa gabar waa hooyadeeda haddeed ma garanaysa waxbaba lagama qariyo
tahliilow bal in waran bal dhinagaaso iyo xerada iyo wabiga hegshe adi meelasay marmaraasay adi inka warroona bal inka waran bal meelagaasay walaalow jawaahirey xerada barakacyaasha wax dhibah kama jiro markii iigu dambaysay dadka dib ayay ugu laabanayeen qaarkood meelihii ay deganaayeen oo ay dhisanayeen haa eeda aan gordi haa dadkaasay way boodad oo iska dhibaataysano tabaalaysano dadkaasay kaalmo aan baahanyin dad kaalmo aan baahan waayo waa runta hadalkaas waa xaqiiq dadkaas waxay u baahan yihiin in la kaalmeeyo way iska dhibaataysan yihiin koley dadaal ayaa loogu jiraaba sidii loo caawin lahaa dadkaas jawaahirey war yaa tahliil war bal soo leexda assalaamu calaykum warsame wacalaykum salaam soo dhowaada bal warrama jawaahir iyo tahliil xaaladiinna ka warrama see la ahaa waa la fiican yahay alxamdulilah adeer warsamow eeda lanfaylaya nabad inamca ayaan takahayna wal dhible majara dhinagaana maasha allah waay eeda lanfaylaya bal waran bal waa khayr adeer jawaahirey waa khayr annaguna aad iyo aad baan u fiicanna wax aan lagu waari doonin ilaahay nimcadiisa waa isugu keen daray alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haa geedan waa iskaga hoos neebsadahay timaha inta fadhiida aahey jawaahirey halkaan baan isaga nasanahayey oo aniga iyo duqooyda kaloo dee ree isku filan meelahanaannu galbihii yaan ku qaraaxaysanaayo hadda odayaal sheeko gaarana waa leeyihiinoo dadku siduu lodlod u yahay buu kala sheeko u yahay horta waxaan rabaa inaan idiin sheego jawaahir iyo tahliilow wiilkan agtayda fadhiya oad arkaysaan baan rabaa inaan idin baro magaciisa waxaa la yidhaahdaa raage waa wiilkayga adeer baanu ahay saaxiibana waana adeer keliya maa barasho wanaagsan maasha allah barasho fahil waa wiilka aan ugu jeclahay qoyskeenna oo dhan intaan adeerka u ahay iyo kulli asagaan ugu jeclahay weliba si gaarana hadda saaxiibbaan u nahay marka waana wiilkaygii waana saaxiibkay waa nin dadka iiga duwan ها ما شاء الله أرجعي نسين صاحبة تنس كشش بضاي تان يسين كبايت ما شاء الله لما طلع يرقى أو كلا شيء كيسد هاي أرجعي ما شاء الله ما شاء الله ها صاحبكيس صاحبكيس ذركي ورسمة مدة أيام سكوكي دمبيسو أحواشا إسكقالينا ما فهمتي مركا صاحبنا وانا raaga siduu sheegay adinkuna aad iska fahateen weeye kowdhe tan kale wiilkan aan si kale idiin baro inuu wiilkaygii yahay saaxiibkeena yahay ka sokow waa wiilka ay nasra u doonan tahay oo guursan doona dhowaan ay hadda alkunti ninkaan weeye waa murashixii weeye ما شاء الله همبلي كلها ما شاء الله ايضا هيك فرحتنا جوي شاكدن هيك قرضاي اني والكلمه لا جرى هادي ilaahay kaama qaado adeer warsamo waaye hadda nasiib bahay nabadayhay qayrasiin rajay insha Allah ها waayahay jawaahiray caafimaad khayr baan isku ognahay tahliilow ma mafaylihiidii caafimaadka ka waran bal ma intan teeganta an shabarsanta maay waan sii baxay eeda jawaar waan sii baxayaa nafteedu waa inaad sabartaa oo weliba dulqaadka aan baraa nafteeda waxaan filayaa in laga yaabo inaan lumiye fursaddii aan ku guursan lahaa nasro maxaan sameeyaa aaway filsan aaway waa taasaa miiska shadiisa taagan maxay isu qornaysaa soo bax bannaanka hee maxaa dhacay maxaa jira walaalay maxaa iga rabtaa aniga maxaa dhacayna ka soo bax miiska gadaashiisa ka soo bax baan ku idhi ka soo bax miiska gadaashiisa maanta anaa aqaan shaqadaade maxaa iga rabtaa ii sheeg waxay fahansiiye maxaa jira maxaa khaldan maanta qof xun ayaa tahay filsanay asxaanna ma lihid yoonis waad qiyaamaysay ciidanka booliiska ayaadna u dhiibtay igamana fakanaysid maanta aniga horta marka hore tartiib aan u wada hadalno walaalay wax fahan markaas qayli laakiin hadda si tartiiba ila hadal fadlan waxaa tahay asxaanlay abaalna ma lihid qof abaal loo galana ma tihid xaasidad ayaa tahay soo bax dhaqso abaal ma lihid wiilka maskiinka ah ayaa dembi ku riday xilligan ninkii dhan ay alaabta ku keenay ee rabay inuu hormariyo ganacsigaaga ayaa dembi u abaabushay soo bax lagama yeelay arrinkaasi maanta wax lagu kala baxaaya ma aha ka warran khiyaanadeeda gabadhan naayaa waad eedaysaa waxaad samaysay lagaagana hari maayo maanta ka soo bax miiska gadaashiisa maxaad iga rabtaan aniga maxaad igula dagaalaysaa walaalayaalow horta wax fahma oo waxay weydiiya dagaal ayaad isiiseen oo waad igu qayliseen horta si tartiiba ila hadla maxaad iga rabtaan
waxaan kugula dagaalayno waad og tahay binti shariif waxba ha iska dhigin waxaad samaysay waad og tahay naayaa ma lagaaga harayo waxa aad samaysay waxaad khatar gelisay nolosha qof dhan oo bili'aadan ah oo aan dembi lahayn ayaa u abaabushay markaasaa weliba isa fiican tahay waa sii hadlaysaa ka waran waxaas baa wax loo dulqaadan kara ah iga leexo iday war aniga maxaad iga rabtaan maad waxay weyddiisaan marka hore wax hubsada oo si tartiiba aan u wada hadalno waxay weyddiiya horta ma isaga ka qaylinaysaan maantay ma kala baxayno qayaanoolay ayaa tahay oo qaa'imad ah nin mas-uul ah ayaad shirqooshay adigoo asxaan laguu samaynayo weliba aragga furkeeda sida muslimkayga fur kor u taagaysaa ka waran idab maleed idabaa lagu yeelaya maanta u soo bax bannaanka idey cambar idey tan aniga ayaa ka adag anigaa meel saaraya waa naa kibirsan anaa maanta kibirka ka jebinaya oo cagaha dhulka ugu dhufanaya waa ballan in lagaa jaro wixii aad yoonis ku samaysay ma ku dhaafi doono magaaladana waa isla joognaa lagaama yeelay marnaba waad la kulmi doontaa wixii aad samaysay wax kasta waan ognahay naayaa wax aan ku weyddiinayana ma jiraan xaasidad weynaatay ayaa tahay walaalayaalow maxay tahay cadaawadda intaa leeg ay aad ii haysaan gardarro ayaad igu maagaysaan aniga horta waxi warsada marka hore i waraysta waxi weyddiiya markaa sidaa rabtaan u hadla laakiin hadda waad iga gardaran tihiin waxna ma aadnaan hubsan waxaad samaysay waad og tahay naayaa yoonis oo nin sharaf leh ayaad shirqool u maleegtay yaan kaa warqabin waa lagu ogyahay naayaa soo bax miiska gadaashiisana ka soo bax horta marka hore isdejiya dagaal ayaad igu soo qaadeen meeshu waa maqaayad maxaa idinku dhacay isdejiya war ilaahay amarkiisu badanaa maxay tahay xaaladda kacsan ee maqaayadda ka jirta waa yaabe assalaamu calaykum maxaa ka jira meeshan muxuu yahay buuqa sheekh cilmiyow dadkani waxay igu haystaan wiil ay cambara i bartay oo yoonis la yidhaahdo ayaa alaab gargaar ah iga iibiyey markii aan ogaadayna waxaan u dacwooday booliska sidaas ayaa jirta buuqa aad halkan ka maqlayso arrintaas ayaa sababtay wax kale oo ay ugu haystaan ma jiraan sababtu waa uun intaa yoonis ayaa sidaasi loo xihay adiga ayaa xihay ayay ileeyihiin cambaro iyo colaad dagaalkaas ayayna igu soo qaadeen saaka aad ayaan kuu fahmay filsanay ee dhegaysta filsan wax wanaagsan ayay samaysay maadaama alaab laga shakisan yahay ay booliska ku wargelisay waana wax loo baahan yahay wixii laga shakiyo in la riboodo oo booliska loo sheego cambaro waxaan ku weyddiiyey adiga wax lug ah ma ku leedahay arrintan waayo filsan adiga ayaa baray yoonis taas inaad caddayso ayaa loo baahan yahay marka hore sheekh cilmiyow maxay u carareen cambaro iyo colaad maxay u jawaabi waayeen hadday wax isku hayaan ka waran aniga ayay buuq igu fureen marka adiga aad timidna way carareen waa ku qasban yihiin inay meesha ka cararaan maxay ka qabanayaan sheekh cilmi ma dhab ayay kaa ahayd carada waanba yaabay see wax u jiraan oo hadda ma dhab baad u caraysan tahay iyagaan kaa burinayey ilama aha inay baxar sidaas ah ay ku jiraan balse waa in laga cabsiiyaa kuwan si looga nabad helo ma garatay filsanay adeer cilmi aniga dhibaato miyaa iga soo gaari karta arrintan ayay kula tahay maya gabadhaydii wax wanaagsan ayaad samaysay yoonis waxa uu iibsanayay gargaarkii dadka masaakiinta ah waxaa hadda naloo soo sheegay in qoysas ku nool xero ku taalla magaaladan dariskeenna ah ay bannaanyaal u yihiin qabowga dhacaya maadaama uu ninkaasi iibsaday gargaarkii loo soo dhiibay ma y garatay filsanay haa waa runtaa sheekh cilmi aad ayaad u mahadsan tahay haddii aanad adigu ahaan lahayn runtii ma garanayo wixii halkaa ka dhici lahaa aad ayay arrintani ii kurbaysay balse xilli fiican ayaa timid xilligeedii ayaad ku timid sheekh cilmiyo war yaa waay waxa baabka soo garaacay yaa waay waa aniga maamule soo gal ma macalinkiiba soo gal mahadsanid maamule bishaare macalin waxaan kuu sheegayaa in manhajka iskuulka laga dhigaayo ma ahan mid nooqaasa ma aragtay haa maamule manhajka ardayda loo dhigaayo waa manhajka guud ee dalka laga dhigo ee ma doonayno manhaj cusub inaannu samaysano koow waa gartay maamule mahadsanid adigaa mudan macalin soo dhowow maamul waxaan u baahanahay buugaag cusub ee sanadkan ah macalin oo hadda buugaag cusub ma hayno kowdhe hadda waxaan ka shaqaynaynaa sidii si degdeg ah looga heli lahaa buugaagtaas cusub waynu ku jirnaa shaqadaasi maadaama hadda iskuulkii la furay in ay la kowsadaan manhajkaan rabnaa ardayda hadduu ilaahay idmo waan ku fahmay macallin si fiican aan u gartay bal ii wad haye saas haatow maalin iskoolka horta u subiye wal kastan hal mar may wada helo kora
baahiyo jarnana si tartiib tartiib ee yelan xalliye saas daraadiya wayba una fadaane inti una wali karaankayna amdaasayta qobana si ficlan laakiin fahmi xataa ani eedan mahasanta maalan xataa adi xataa mahasanta teeda kale dadaalka iyo howsha aa ku jirta allah kula garab galo howl culusaa haysaa allah kuu fududeeyo waan ku dadaalaynaa macalin sida howshaasi aa ku soo dardargelin laheen oo ku boobsiin laheen marka maadaama ardaydii hadda iskugu imaatay insha allah waa ka shaqaynaynaa hadduu ilaahay idmo waayahay allah kula garab galo annagana garabkaadaan nahay soo gal bal soo gal assalaamu calaykum maamula bishaaro وعليكم السلام مامروي سو دwow ما شاء الله waa soo dheeraatay maanta soo dhawow bal waan dhawahay maamula bishaaro xaaladu ku waran bageeka ma hayta waan fiicanahay maasha allah ها مامروي hadhawaw intana fadhowshaya kiin dalabay inta fadhow haye maalintii kuugu horreysay shaqada iskuulka ka waran bishaaro bal warka isii marwoy iskoolka geeka maadaama us ay maalintii inka horreeytu isla furi eediyanka faraxsana farxadayna tolaha koobo koroma waan gartay saasahatow hore soomaali wali enka ma mahatay qofkii xilqaadi eed qaadiya leeri homadu ad xilkan ada qaadina antisa toosa adan guduta oo awlaadansa toosa walanbarta yowaay waan gartay waa sax inaad ku faraxsan tahay shaqadaada tiidiya kale marwoy xoogaa may baana ku welwelsanaayey laakiin hataana ka kalsoonaa inuu iskuulku saameyn weyn kawaal lada doona nolola awlaadayna ee magaalada isku filan iyo magaalooyinka kaleba sidaan rajeeyahay waa war wanaagsan oo lagu farxo taasi waxay kuu suurtagelinaysaa inaad magac ku yeelato deegaanka isku filan marwoy horta tani waa riyadayda kowdhe iyo sidani aan damacsanahay inaan wax uu qab iskuulkan haddani aan mas-uulka ka ahay waxaana doonayaa sidoo kale inaan aad u horumariyo aan gaarsiiyo meel sare waxbarashada carruurta magaalada isku filan waan hubaa inaad karti u leedahay oo aad samayn karto horumarka aad tilmaantay oo aad ku riyoonaysid soo gal bal soo gal assalaamu calaykum waraxmatullah bishaaro waxaannu kugu nimid inaan kugu wargelinno in dhowaan ay dhici doonto waraysi meel fagaaro ah lagu qaban doono lala yeelanayo maamulka cusub waraysi see ah cilmi waraysigaa ka hadlaysa maba ogyaaniye waraysi ayaa la qaadayaa ciddii maamulka iskuulka loo dhiibi lahaa wax dhib ahna ma laha arrintaasi inaad u diyaargarowdo ayaa lagaa rabaa cilmiyo waraysigaasi meeqee qof ayaa ka qayb gali doonto oo diyaar u ah hadda annaga ogaalkayaga waxaa ka qayb gelaya adiga iyo hal macallin oo nin ah kaasi oo ka soo jeeda magaaladaas deriskeenna ah ma garat haa waan gartay waayahay dhib ma laha insha allah bishaaro waxaan kuu sheegayaa inaysan jirin wax dhibaato ah xataa haddii lagu dooran waayo waxaad noqonaysaa macallimad aad u weyn oo sharaf leh maadaama aad ka mid tahay dumarkii iskuulkan dayactiray oo ka shaqeeyey waa run mudnaantaada ayaad leedahay xitaa haddii lagaa guulaysto oo aad nasiib u yeelan weydo inaad xilkaasi qabato ha welwelin tartan guusha adiga ayaana qaadi doona dhib ma lahan cilmiyo waana arkaynaa siday wax noqon doonaan hadduu ilaahay idmo wax walwala ma jiraan hawshaada ayaa haddana sii wadanaysaa balse u diyaargarow loolanka dhacaya waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid adag waayahay cilmiyow aad ayaad u mahadsan tahay waana isku diyaarinayaa wax dhib ahna ma lahan koley qof unbaa guulaysanaye koley qof unbaa soo baxaye waan arkaynaa hadduu ilaahay idmo waa saas weeye alla maxaa gabar niyad wanaagsan tahay oo kalsooni ka muuqato nasiib wacan ayaan ku leeyahay bishaaro nasiib wacan sheekh cilmiyow sidoo kale adina soo dhawow bishaaroy waxaan kuu sheegayaa ujeedkaan u nimid ayaa waxau ahaa inaan intaasi kula wadaagno oo aan markaasi kugu wargelinno si aad u ogaato maadaama aad ka mid tahay tartamayaasha gorodii sharma arka waana eedanka mahadsantin lamadiinba adiga sheekh cilmi adigaa mudan bishaaro waanaan sii baxaynaa bishaaro haa maamarwoy ilaa hadda wax waraysi oo la qaaday ma jiraan haye waana kugu kalsoonahay inaad ku guulaysan doontid waa mahadsan tahay maamarwoy aad iyo aad sidaa ii taageersan tahay aada ugu mahadsan tahay waxaana hubaa inaad qof kartile aad tahay oo guul keeni kara ee horay u soco dadaal muuji waad guulaysan doontaae
meelon kuleel badana bismillaahi raxmaan raxiim dhididkay shanshaan andhayahay wallaahi eed iyo kuleelangata adeer suldaan haddahan dhammaayahan raabti towbarki ka eedanaayi ee nadaafadda waana haddahan hiri fadhigi jawaahirkiinka mahadnaga sida fayla ada hagarlaantee ad eednin garab surunta waana nin caawiyaas markaste eedaan ka mahadsanta taas ha adeer suldaan intaasay caadi waaye dadkuna waa dadkay waaye garatay intaasayinka badangna ay leeyin wayba waa caadi waaye intaasayinkaga mahadnatoy waa iska caadi ah waaye taasay hooley waaye eed aragahay ini adahan raabti siniyid fayl eedan dareerti markii shir ka dhammaaday abaalkaas ma ekowna gudu korna jawaahirey adeer suldaan see tahay faylaha nasrood see taal adeer suldaan waxaan kaa raaligelinayaa teendhooyinkii soo daahay waxaanse kuu sheegayaa in hadda labadan maalmood ee soo socda gudahooda ayna soo gaari doonaan waana ku faraxsanahay inaan kula wadaago arrinkaasi eedaan mahadsanta nasrooy weli itaa gabar dadaal badan oo eednayn la shaqayti markasna diyaarna innu garab surunto garabkaana surnaanta eedaan ku mahadsanta taas waa laisku leeyahay middaas adeer suldaan waxaas iyo wax ka badanba dadka markii dhibka kabadada wal kasta isla qaadadaayan sabarlaanga kooyasita walina badda inuun oggolaana gadadow ka alaabnaninka tirigalna dad noo liidado oo eed anka baahan alaabtasay waa alaablanka tirigali dad unu noo liidadan taasna eedaan ku hungna adeer suldaan arrintaasi way dhammaatay haddana waxaan ku faraxsanahay in yoonis la xidhay inta uu dhibaato kala geysan uu wax kale sii halaynin dhibaatuu in gargaarka dadka masaakiintaha ilanka tiligali dadkallaka gadad wal dhibaataya u taas waayo eed iyo ansaamayaas dad ka sugaayeen oo xitaa wali sheeno kortee in udur waa ambaaba'an daawidii iyo agabkii iyo ambaahnaayaan handeero korna dartiye taas dhibaato weyn waay adeer suldaan waxaan kaloon kuu sheegayaa in teendhooyinkii aan dib ugu wareejiyey hay-adda si ay ugu geyso dadkii loogu talagalay oo ah barakacayaasha ku nool deegaanka deriskeena ah eed iyo eedaan uma hadsanta nasro sidaas dadaalka ninka muujidi waa toolan hilmaamu kornuu taas adeer suldaan mar kastaba garabkiina ayaan ahay mana idinka daali doono inta aan noolahay halow hooyo ma i maqlaysaa nasro hooyo halkeed joogtaa gabadhaydiyay hooyo haa hooyo waxaan joogaa xerada barakacayaasha waxaan rabaa hooyo inaad hadda si dhaqsi ah aad guriga u timaaddo ma garatay hooyo ma garatay nasro haa hooyo wax daran miyaa jira maya ee adiga horta marka hore guriga imow waan ku sugaynaaye hooyo soo dhaqso waayahay hooyo waan imaanayaa insha allah waayahaye soo dhaqso gabadhaydiyey soo dhaqso soo dadaal oo maxaa jira oo cusub oo hooyaday ii soo wacday kolay waa la ogaan doonaa wixii jira sidaan weligay iima soo wicin waan arki doonaa wixii cusub bal yaa nasre allo isbeddel degdeg ayay ka dhigay aragahaytee laakiin mayka weela sa'ada walay ka dhigay ii sheega doonta kolley ii sheegas andaba gala doono yaa aranton warsade waanana nasroy ka sii rahay haddii ada meel kale adayna jeedna horayn isku sii lagu darsadaane anana bannaankan jeedi haa jawaahir meel kale uma socdo waan isa sii raaci karnaa haddaa rabto ee soo baxna kaxay haa mayba islahaaye riita ama meel kale lay injeedda yaa islahaay maya xaafadda ayaan u socdaa oo keliya saacaddan meel kale maba aadaayo guriga ayaan u socdaa eeda nasra ama hasantaa hore ina sii rahaana oo iska sii lagu darsadaan anana beledka yaa horanka jeeday isii weheladaan aniad enabi dhib male waaba u baahnaay wehelka yaaba heli karabo nasray walka warsada kore walaalay adigoo raalle eh haa jawaahir waad iweydiin kartaa waa iska caadi nasroy ada guurka mayninka qarsati iidoo qabanqaabadaya dareerta mayba kalaha mayninka qarsati guurka insheeg bal yaa sugbal maxaad tidhi guurkee yaa waxaas kuu sheegay walaalay macaanee maysadan ka qalqalhayta war arooska mayninka qarsatee keeri qofyay yaa melika jeeda maay xalwada noo qarsataysaan caadi maka ihiidi maxaa guur ah waa maxay guurkaad ka hadlaysa jawaahir wax aan aniga ogeynaaba ka hadlaysaaye